goob walba oo ka mid ah caalamka waxay leedahay taariikh iyo xaqiiqooyin u gaar ah. Haddaba waxaan idiin soo xulnay xogo laga yaabo inaydan ka aqoon magaalada London ee caasimadda u ah England iyo boqortooyada midowday. Magaaladan waxaa 2012 lagu qabtay ciyaaraha Olombikada, waxaana kolkaasi lagu arkay magaaladan ciidankii ugu badnaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Waana magaalada kaliya ee 3 jeer lagu qabtay ciyaaraha Olombikada. Magaaladan caanka ah waxaa ka jirta khidmad la yiraahdo khidmadda ciriiriga oo la iska qaado marka uu ciriiri dhaco ama wadooyinku jaam noqdaan. Waxaana kugu waajibaya haddii aad tahay qof doonaya inuu noqdo tagsiile xifdinta dhammaan jidadka London waliba adigoo maraya imtixaan la yiraahdo knowledge. 2011 waxaa magaaladan loo aqoonsaday inay ka mid tahay magaalooyinka aqlabiyadda ku leeyihiin dadka dalka looga tiro badan yahay, waxayna noqdeen dadka caddaanka ah ee asalka ah 49.9%. waxaana magaalada maayarka ah Sadiq Khan oo ka soo jeeda dalka Pakistan, isla markaana noqday muslimkii ugu horeeyay ee maayarka noqda London. 2018 waxaa boostejooyinka tariinada ee magaaladan laga mamnuucay in lagu cabo khamriga kadib markii ay korodhay dadka ku caba. waxaana jidadka hoose ee tariinada ku nool jiir ama doole aad u badan oo lagu qiyaasay 500 oo kun. Boostejada tariin ee Waterloo ayaana ah midda ugu saxmadda badan London, maadaama ay galaan 57,000 oo qof waqtiga subaxdii. sidoo kale garoonka diyaaradaha London ee Heathrow waa mid ka mid ah garoomada caalamka ugu saxmadda badan, waliba iyadoo magaaladan leh 5 airport oo waaweyn. waxaan aaminsanahay badankeenu in saacadda Big Ben in ay tahay ama loola jeedo burjiga caanka ah ee London, balse sida saxda ah waa qayb ka mid ah burjiga, waxaana burjiga lagu magacaabaa Elizabeth. waa magaalo qaali ah, wuxuuna apartmentiga ugu qaalisan ee London joogaa $170 milyan oo la mid ah wax soo saarka guud ee gudaha ee Jamhuuriyadda Polow ee dhacda galbeedka badweynta degan ama Pacific Ocean. dhanka kale magaaladan waxaa ku nool tirada ugu badan ee shakhsiyaadka ugu qanisan caalamka, waana 72 shakhsi oo la mid ah labalaabka inta ku nool guud ahaan dalka Imaaraadka. wuxuuna GDP-ga magaaladan gaaraa $761 bilyan, waana in ka badan GDP-ga dalka Sacuudiga. magaaladan 40% waxaa daboola doog iyo geedo cagaaran, taasoo la mid ah 173 kiiloomitir oo ka mid ah badka guud ee magaalada London ku fadhido. wuxuu sheegaa tirakoobka u dambeeyay in magaaladan ay ku nool yihiin dad ka badan 8 milyan, ayadoona looga hadlo 300 oo luuqadood oo aan hayn English. taawarka ama burjiga The Shard ee London waa taawarka ugu dheer dalalka midowga Yurub, waana dhismaha afaraad ee ugu dheer guud ahaan Yurub. wuxuu kaalinta 65aad ka fadhiyaa dhismooyinka ugu dhaadheer caalamka, wuxuuna dhirirkiisu gaaraa 320 mitir, waxaana dhisidiisa la dhameeyay sanadkii 2012. wuxuu burjigan ka kooban yahay 87 biyaano oo ah maktabado, maqaayado iyo hoteelo, waxayna dadku booqdaan biyaanada 72 oo leh dhul bannaan oo laga daawan karo magaalada. London waa midda ugu badan ee lagu arko baabuurta basaska ah, waxaana tiradooda lagu sheegaa 8,500 oo bas, ayagoo qaada sanadkii 1.7 bilyan oo rakaab ah.